سلطان أحمد سلطان موسى جامع جوداد أيها قد شرف وسميه هوتيل منصور مقالة هرقيسة مدحونا كحجينك الصومالي لأن عبد الرحمن إسماعيل سيلعي يقدم ياشا صدح لحسب قرن أعيد وضني يكلمية iyadoo munaasabadaasina ay qayb ka ahaayeen sidoo kale odayaasha dhaqameedka Soomaaliland waxaana ugu horeyn madashaasi ka hadlay qaar kamid ah oday dhaqameedka shayna kalmad baa oranayaayo sidaad Sheekh Muuse ula shaqeynayeen inaad ula shaqeysaan oo dadka ka horeysaan oo aqbalka arrinka adduunka is-agtaaga idinka koowa umada kale waa nabarto marka sidaad u soo xusheen halkan Mansoor kaga taginay waxaan idin leeyahay sidaad soo xusheen u dhinac socda oo magaciisa u muujiya wixii aad u soo xusheen markaas laga heli doonaa laakiin haddaad ka tagtaan ummaduna way ka tag inaanu halkan kaga soo qayb galno Sultan Ahmed Sultan Muuse Jaamac Goodaad oo sidii Sultan Ismaaciil sheegayba taariikh weyn oo dheer ku leh mandaqadan iyo jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu ku leenahay Sultan Ahmed ku soo dhawow golaha dhaqanka ummadda afka Soomaaliya ku hadasha dal kasta ay joogaan kulay maanta xafladu waa inspiration weyn in Sultanka maanta aynu baranayno ee leeyahay keenay Sultan Ahmed Sultan Sheekh Muuse Goodaad isagana waxaan leenahay halka lagu dhiibay ee maanta lagu saaray ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay ku waafajiyo xaqa ilaahay ku fududeeyo misna dhinacoodayna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga UCID ahna musharaxa madaxweynaha xisbi macaaradka UCID Faysal Cali Waraabe waxay hambalyeynayaan soo xusheen وفي نور بوحية كالنتي سلطان موسى شيخ جوداد أنا وصول الشيخ سلطان إسماعيل وحال كان له يبي وحوي ومقعي ياخذ ممكن تاجنا ومضى في سومالا شيخ موسى صلاتي ترى ما لما علوي وحنا الله كويس على مصاري كل الصوت هو شعله xoodayna waxa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdi Raxmaan Ismaaciil Saylici qaba sharafta loo sameeyay Sultan Ahmed Sheekh Muuse Jaamac Goodaad oo Sultan cusub oo ku soo biiray bahda dhaqan ku soo biiray oo saala sheegay abi taariikhda ku lahaa lana wada og yahay maanta Sheekh Muuse Jaamac Goodaad ana xariistay dalkan dadka soo qabtay waxay inaylo gudboon kaliya oo ku soo gunaanadeyna saddex arrimood weeyaan inaan aan warka hore waxaan qaliyo hadii markii uu soo doortay inaan abigu soo joogsado marka koowaad waxaan balyeynaa marka labaad waan u ducaynaynaa sultaanka inay xaq garasiyo oo noqdo sultaan xaq iyo cadaalad ku shaqeeya umadiisana wanaaga oo seeda wixii xumaan wadaana ku joojiya talabaadna waxaan ku dardaaraynaa inuu maartay dalkiisa dadkiisa maartay ka horumariyo dantiisa mar walba qaranka iyo tamaadeen oo ku soo jeedo aad iyo aad baan u hambaleynaynaa ugu dambeynna waxaa munaasabadaasi soo gabagabeeyay oo hadal halkaasi ka jeediyay Sultan Ahmed Sultan Muuse Jaamac Goodaad waxaana hadaladiisu u dhignaayeen sida tan waxaan xaggan aan soo kacay hadal badan uma soo kicin marka hore oo hadalku waa la dhameeyay haday noqoto salaadiinta haday garaadka noqoto iyo haday noqoto madaxda waxaan marka hore xaggan aan ka duceynayaa oo ugu duceynayaa in abaarahan culus oo ilaahay macnaan nagu soo wajahay inuu ilaahay naga kor qaado inuu ilaahay abaarahan noogu bedelo barwaaqo inuu ilaahay ummadda gacantiisa uga dhaqin karta ilaahay uu gacantiisa noogu dhaqiyo inta waxaan ku deenayaa ducada waxaan kaloo xaggan aan ka sheegayaa aad baa aaba taariikhdiisa looga soo sheekeeyay waxaan leeyahay ilaahay xasanaadkiisa aakhiraha ugu daro muxuu ahaa aniguna waxaan rajeynayaa kollayba mar walba la yiraahdo Sultan Ahmed Sultan Sheekh Muuse waxaa la yiraahdaa moogta barti aabi kollay barti aabaha gaari maysid waxaan jeclaan lahaa in la yiraahdo barti aabaha wad gaari inaan ka balsaan rajeynaynaa والله هذا الدعاء وحي معناه كرنا قفكو سي قادان لكن انتانا waxaan ku deynaa kaftan waxaan markaa halkay soo gabagabeynaya wadadii aabo oo ka shaqeyn jiray haday noqoto nabadda iyo haday dhaqanka noqoto iyo
hadday dhinac walba noqoto oo qaranka Soomaaliland ugala soo shaqeeyay waxaan maanta xaggan aan ka rajaynayaa ana ka sheegayaa inaan wadadii aabo ilaa u naxariistay aan dhabadeedii qaado insha Allah. Khalid Yusuf Hassan Khalid Fantastic waa Bari TV magaalada Hargeysa.